oday siddeetan jir ah oo ku nool gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa lagu soo oogay dacwad dil ah kadib markii uu toogtay darawaladu shaqaynaysay shirkadda Uber oo lagu magacaabo Loleta Hall, taas oo u tagta ama gurigiisa ninkaas inay ka soo qaado baakad ay alaaba ku jiraan. laakiin booliisku waxa ay sheegeen in labadooduba ay u muuqdeen inay dhibanayaal u ahaayeen telefoon been abuura. booliiska ayaa sheegay in odaga dilka lagu eedeeyay oo la yiraahdo William Prock laga soo wacay telefoonkiisa, loona sheegay inuu xiran yahay wiil uu adeer u yahay, loona baahan yahay inuu bixiyo lacag dhan $12,000 si xabsiga looga sii daayo. sida warbixinta booliiska lagu sheegay, qofka telefoonka u soo diray odaga ayaa dil ugu hanjabay wiilka uu adeerka u yahay isagaba haddii uusan bixin lacagtaasi madax furashada ah. qofkaas aan la garanayn ee telefoonka adeegsanayay ayaa markii uu odagu u sheegay in lacagtii iyo baakadiiba ay baakad ku jidha ay diyaar tahay u adeegsaday shirkadda Uber si ay ugu soo qaado. sidaas ayayna haweeneyda la dili doonaa ay ku tagtay guriga iyada oo aan ka warqabin in odaga dilka loogu hanjabay iyo sida ay wax u dhaceen toona.